yacquubna sodcaalkiisii ibuu iska sii watay oo wuxuu yimid dalkii reer bari kolkaasuu wax fiiriyey oo wuxuu arkay ceel barrinka ku dhex yaal oo waxaa joogay 3 qaybood oo ida ah oo agtiisa jiifjiifa maxaa yeelay ceelkaasay idaha ka waraabin jireen dhagaxa ceelka afkiisa saarnaana aad buu u weynaa oo halkaasaa idaha oo dhan lagu soo ururin jiray kolkaasay dhagaxa ceelka afkiisa ka rogi jireen oo idaha ka waraabin jireen markaasay mar labaad dhagaxa ceelka afkiisa saari jireen oo ku celin jireen meeshiisii markaasaa yacquub ku yidhi walaalahayow xaggaad ka timaadeen iyana waxay yidhaahdeen waxaannu ka nimi haaraan markaasuu ku yidhi ma taqaaniin laabaan oo ah ina naaxoor markaasay ku yidhaahdeen waannu naqaan markaasuu ku yidhi ma nabad qabaa iyana waxay yidhaahdeen haa wuu nabad qabaa waa taas gabadhiisii raaxeel idaha soo kaxaynaysa oo wuxuu ku yidhi iyagii bal eega weli waa maalin weyn mana aha goortii xoolaha la soo wada ururin lahaa idaha waraabiya oo kaxaya oo daajiya iyana waxay yidhaahdeen ma yeeli karna taas jeeray idayowga oo dhammu isu yimaadaan oo dhagaxa ceelka afkiisa laga rogo markaasaannu idaha waraabinaynaa oo intuu weli la hadlayay ayaa raaxeel keentay idihii aabbaheed waayo iyadaa ilaalin jirtay oo yacquub markuu arkay raaxeel oo ahayd gabadhii abtigiis laabaan iyo idihii abtigiis laabaan ayuu u dhowaaday oo dhagaxii ka rogay ceelka afkiisa oo uu waraabiyey idihii abtigiis laabaan markaasuu yacquub raaxeel dhunkaday wuuna qayliyey oo ooyey yacquubna wuxuu raaxeel u sheegay inuu yahay aabbaheed xigaalkiis oo uu yahay wiilkii rabeqa kolkaasay oroday oo u sheegtay aabbaheed oo laabaan markuu maqlay warkii yacquub oo ahaa wiilkii walaashiis ayuu ku orday inuu ka hor tago markaasuu isku duubay oo dhunkaday oo uu gurigiisii keenay isna wuxuu laabaan u sheegay waxyaalahan oo dhan laabaanna wuxuu ku yidhi isagii ubaal waxaa tahay laftayda iyo jidhkayga wuxuuna la joogay isagii intii bil ah markaasaa laabaan yacquub ku yidhi walaalkayga aad tahay aawadeed ma habboon tahay inaad mushahaaro la'aan igu shaqaysid bal ii sheeg mushahaaradaadu maxay ahaan doontaa laabaanna wuxuu lahaa 2 gabdhood mid weyn magaceedu wuxuu ahaa lee'ah tan yar magaceeduna wuxuu ahaa raaxeel lee'ahna way inla darnayd laakiinse raaxeel way quruxsanayd suurad wanaagsanna way lahayd yacquubna wuxuu jeclaa raaxeel markaasuu yidhi 7 sannadood baan kugu shaqayn gabadhaada yar oo raaxeel ah laabaanna wuxuu yidhi waad wanaagsan tahay inaan adiga ku siiyo intii aan iyada nin kale siin lahaa ee la joog yacquubna 7 sannadood buu u shaqaynayey raaxeel aawadeed waxayna la ahaayeen maalmo yar waana jacaylkii uu iyada u qabay aawadiis yacquubna wuxuu laabaan ku yidhi maalmahaygii way dhammaystirmeen ee naagtayda isii si aan ugu tago iyada markaasuu laabaan soo ururiyey nimankii meeshaas joogay oo dhan oo wuxuu sameeyey diyaafad oo waxay noqotay inuu fiidkii kaxayo gabadhiisii lee'ah oo uu u geeyey isagii isna wuxuu u tegey iyadii laabaanna wuxuu gabadhiisii lee'ah siiyey silfa oo isaga addoon u ahayd inay iyada addoon u noqoto yacquubna wuxuu aroortii arkay inay tahay lee'ah oo wuxuu laabaan ku yidhi waa maxay waxaan aad igu samaysay miyaanan raaxeel kuugu shaqayn dee maxaad haddaba ii khiyaanaysay laabaanna wuxuu yidhi dhulkayaga sidaas laguma sameeyo intan yar curadda la dhaafiyo bal tan 7keeda dhammee tan kalena waxaannu kugu siin doonnaa shuqulka aad 7 sannadood oo kale ii shaqayn doontid yacquubna sidii wuu yeelay 7keediina wuu dhammeeyey markaasuu laabaan yacquub siiyey gabadhiisii raaxeel inay naag u noqoto laabaanna wuxuu gabadhiisii raaxeel siiyey bilhaah oo isaga addoon u ahayd inay iyada addoon u noqoto oo raaxeelna wuu u tegey oo isna raaxeel aad buu u jeclaa lee'ah 7 sannadood oo kalena wuu u shaqeeyey isaga